waxaan ku guda jirnay koorsadii cashier management system waxaan qaadanaynaa casharkeena 8aad waxaan rabaa inaan la dego aan ogaado maanta wixii dhacay kadibna qaybtaasaan ku dhufanayaa waxaan leeyahay sales detail meel kalena waa kala degi karaa laakiin hadda tan aan isla arkayna markaan sidaas ula dego waxaan isla arkaynaa marka tusaale qofkan si loola xisaabtamo waa in la helo muxuu gada maanta wuxuu gada cabitaan intaan avocado intaan uu ka gaday batiiq intaan uu ka gaday caanabooro water intaan uu ka gaday shaax intaan uu ka gaday food intaan uu ka gaday shelter intaan uu gaday waxaan ka soo qaadaynaa marka $23 ayuu ku shaqeeyay qofkan cashier-ka ah cashier-kana magaciisa hoos nooga soo bixi doonaa marka halkan expected-ka lacagta laga rabay oo uu qabtay waa kana cash in marka koobaad intaan uu qabtay cash haddana mar kale intaan uu qabtay haddana mar kale intaan uu qabtay lacagta guud ee uu hayana waa intaan difference wax oo ma jirin oo difference u dhaxeeyay oo yani lacagta uu countiga ku qoray markuu xiray session-ka iyo intuu shaqeeyay way isla ekaayeen meeshana waa tan halkaan ay faafahintu ku qoran tahay tusaale opening session-ka cashier farxaan markuu session-ka furanayay EFC intaana ku jirtay 00 ahaayeen iyo idahab iyo jeeb end session cashier farxaan markuu session-ka xirayana EFC plus iyo idahab iyo jeeb EFC plus-ka iyo $23.5 inay ku jirto sheega marka qofkaas hawshii sidaas ku dhamaystay markuu furay iyo markuu xiray session-ka inta lacag uu hayay way caddahay shaqadu qabtana waa cadda